kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalkan daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa Netanyahu oo si dirqi leh kaga badbaaday gantaalo ay Iiraan ay ku garaacday gurigiisa qasaarihii u dambeeyay halkaas ka dhashay faahfaahinada xilliga soo baxaya ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale intaad muuqaalka daawanayso ku soo gudbin doonaa Mareykanka oo lagu qaaday weerarkii ugu cuslaa oo ay fulisay Iiraan faahfaahinadii u dambeeyay oo ka soo baxaya weerarkaasi qasaarihii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa Israa'iil sidoo kale Mareykankana waxay dirayaan fariimahan jawaada iyagoo ku hanjabaya in Iiraan ay ku qaadi doonaan weerarkii hore ay ugu qaadeen mid ka duwan Iiraan oo laba jibaartay weerarada ay ka fulinayso Mareykanka Israa'iil sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona Kuuriyada Waqooyi oo ku hanjabtay hadii xulafada Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay jooji waayaan fargelinta qaawan ay ku hayaan Iiraan ay dhankooda si toos ah ugu soo biiri doonaan dagaalka isla markaana ay bartilmaameedsan doonaan goobaha muhiimka u ah Mareykanka iyo Israa'iil waxay sidoo kale ay ku hanjabtay Kuuriyada Waqooyi in ay gantaalo nooca ugu culus ay ku garaaci doonto wadamada xulafada la ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil waa sidee xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa xilligan xaaladdu sida ay tahay haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaara muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garee like inoo sar soo gaara asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada waxaan idinka raali gelinaynaa intii aan ka maqnayna hawada waxaan nahay qof bini aadam ah xanuun dartiisa ayaa la maqnaa balse dib ayaan u soo laabtay xogii u dambeeyay si toos ah ayaa wixii maanta ka dambeeyay idinkugu soo gudbin doonaa hadii Rabbi uu qadaro hadii aan ku bilaabno Iiraan waxay gantaalo culus ay ku garaacday gudaha dalka Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv iyadoo la sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo si dirqi leh kaga badbaaday gantaalada Iiraan ay ku garaacday halkaasi wararka ayaa waxay sheegayaan gantaalo dhowr ah ee firkooda uu ku dhacay guriga ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo la sheegay in xilligii firkaasi uu ku dhacay uu ku sugnaa qaybo kamid ah gurigiisa balse la sheegay in si dirqi leh uu kaga badbaaday halkaasina ay ka wadeen mas'uuliyiin iyo sidoo kale ilaaladiisa gaarka iyagoona lala cararay qaybo kamid ah guryaha hoostiisa oo ay ku sameysteen difaacyo ay Iiraan weeraradeeda ay kaga gambadaan ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xilligan waxa uu ku sugan yahay xaalad adag maadaama Iiraan ay si toos ah ay u bartilmaameedsanayso hooyigiisa iyo sidoo kale meelaha uu isaga si gaar ah u tago wararka soo baxaya ayaa waxay xaqiijinayaan amaba ay sheegayaan in gantaal xoogan lagu weeraray qalbiga magaalada Tel Aviv waxaana Israa'iil ay sheegtay in weerarada cusub ay sababeen dhaawac dad kor u dhaafaya ilaa 10 qof iyadoo wali Israa'iil ay soo tabanin dhimasho soo gaartay dadkii ku sugnaa guriga Netanyahu sidoo kale goobaha sida gaarka ay u bartilmaameysatay Iiraan Israa'iil mar walba oo gantaalo lagu garaaco waxa ay qariyaan dhaawacyada ay sidoo kale dhimashada inkastoo ay sheegaan tiro faraku-tiris ah oo aysan si sax ah u sheegin waxyeelada ka dhalata halkaasi waxay sidoo kale ay sheegaan kaliya markii ay weeraro ay ku qaadaan Iiraan iyagoona sheega in tiradii waxyeelada ay soo gaartay in ka badan inay ku soo shaaciyaan baraha bulshada balse Iiraan markaan waxay laba jibaaraysaa weeraradeeda sida tooska ah ay ku qaadayso Israa'iil sidoo kale Mareykanka iyadoona si gaar ah u bartilmaameedsanaysa goobo muhiim u ah labadaasi wadan sidoo kalena weeraro ay ku qaado mararka qaar wadamada Khaliijka maadaama markii hore oo dagaalka bilaabanayay ay Iiraan ay si toos ah u weeraraysay wadamada Khaliijka balse markaan dagaalkeedii waxa uu muuqdaa inay u weecisay Israa'iil sidoo kale Mareykanka gantaalada Iiraan ayaa waxa la sheegay ku garaacday Israa'iil in ay yihiin kuwa ka awood badan kuwii Iiraan ay horay u isticmaali jirtay sida ay sheegeen saraakiisha booliska si degdeg ah ayaa waxa lagu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Israa'iil oo ku eedeeyay Netanyahu inuu dagaalkan u maamulayo si ka baxsan mas'uuliyadda caruurta haweenka iyo dadka da'da ahna
aysan helin xaqii ilaalada ay ka mudnaayeen ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoona xaaladdu markaan ay noqotay mid adaga ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iilna ay ku xumaatay maadaama markii hore uusan filanaynin in dagaalka heer intaan la eg uu soo gaari doono isla markaana Iran ay dagaalkaasi wadi doonto waxa uuna fikirkiisu ahaa in markii ay dilaan aan iraahday Ayatollah Ali Khamenei uu dagaalka halkaasi ku ekaan doono balse Iran ay la soo baxday waji cusub oo ka bedelan midkii hore ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ku yaqaanaan waxayna sheegtay in dagaalka marnaba uusan joogsan doonin oo ayada kaskeeda u joojin doonto inkastoo baaqi kala duwan ay u dirayeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ka codsanayeen in dagaalka la joojiyo Iran ayaa waxay ku dhawaaqday in dagaalka si iskeeda ay ku joojin doonto balse aysan joojin doonin ilaa iyo ka bartilmaameedsanayso goobaha muhiimka u ahaa dhinaca kalena haddii aan aadno weeraro culus ayaa lala bartilmaameedsaday warshadaha ee shidaalka safeeya ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas xaaladdu ayaa waxay noqotay mid degdeg ah iyadoona sidoo kale dadka la faray inay ka digtoonaadaan maadaama Iran ay weeraradeeda la bajibaartay isla markaana goor walba la filan karo in weeraro culus ay ka fuliso Mareykanka qaybo kamid ah goboladiisa iyadoona sidoo kale weerarkii lagu qaaday gobolka Texas uu sababay khasaaro baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu sheegay in Iran ay ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidoo kale gantaalka nooca balaastikada iyadoona la sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaaro aad u culus warshadan ayaa waxa ay kamid tahay xarumaha ugu waaweyn ee sifeeya shidaalka ee ku taala dalka Mareykanka taasoo ka dhigaysa dhacdadan mid leh saameyn dhaqaale iyo sidoo kale mid amni oo aad u balaaran waxayna noqonaysaa mid ka duwan kuwii hore ee khasaaraha ee ugu badnaa ee halkaasi uu ka dhashay dhacdadana waxaa sidoo kale ku soo aadaysaa xilli dagaalka u dhaxeeya Mareykanka Iran iyo sidoo kale Israa'iil uu sii xoogeysanayo taasoo ka dhigaysa in natiijada ay noqonayso mid saameyn xoogan ee ka dhalanaysa maadaama ay Iran aysan joojinaynin dagaalkeeda isla markaana ay bartilmaameedsanayso goobaha muhiimka u ah Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka dhinaca kale haddii aan aadnana Kuuriyada Waqooyi waxay ku hanjabtay in ay dagaalka si toos ah ay ugu biiri doonto haddii xulafada Mareykanka ay joojin waayaan faragelinta ay ku hayaan ee dagaalka ka socda amaba u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iran waxay Kuuriyada Waqooyi hogaamiyahooda Kim Jong Un uu ku dhawaaqay in ay adeegsan doonaan hubka culus isla markaana dagaalka si toos ah ay u gali doonaan ayna weerari doonaan bartilmaameedyo muhiim ah oo ka badbaaday Iran iyagoona sheegay in Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay cagta ay marin doonaan haddii xulafada ay joojin waayaan dagaalka amaba faragelinta ay ku hayaan dagaalkaasi waxa uu Kim Jong Un uu sheegay in wadamada ee saaxiibada dhow la ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil uu dhankiisa uu weerar culus uu ku qaadi doono isla markaana Iran si buuxda uu ula soo safan doono hore hogaamiyaha ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad waxa uu ku maray in uu garab istaag xoogan uu u muujiyo amaba uu siinayo Iran isagoona sheegay in hubka nuclear-ka gantaalka ay Iran ay ku wareejin doonaan si Iran aan iraahday Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay isaga celiso waxaa sidoo kale Iran garab istaag weyn u muujiyay Ruushka isna ku dhawaaqay in Iran ay ku taageeri doonaan hub sidoo kale saanada military iyagoona labadaas dhinac ay wacd ay ku mareen haddii xulafada Mareykanka ay joojin waayaan faragelinta ay hayaan iyagana dhankooda si toos ah dagaalka ay ugu soo biiri doonaan xogahaasi wixii kale ku soo kordho muuqaaladeena xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balaalkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay laakiin noo saar soo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada